بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين kelimadeennii 29aad maanta waxaan ku soo qaadanaynaa alcamalu lilislaam inuu qofkii camalkii islaamkii inuu u shaqeeyo waxa weeyaan in islaamka loo shaqeeyaa waxa weeyaan waa shaqada qof kasta oo muslim ah loo abuuray markuu ahal u noqdo laga soo bilaabo ilaa uu ka dhinto lianna allaha tacaala yaquulu wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun marka haddiiba ay tahay waxa lagu abuuray ilaahay inaad caabudid hawsha aad qabanaysa inaad ilaahay caabudid dadka kalena aad addooman ilaahay uga dhigtid labadaasa shaqadaada ay tahay waxaan kaloo adduunyada waa ku meel gaar ama waxa weeyaan kaalmaysasho oo adduunyadii aad kaalmaysanaysid sidii aad u heshid wixii lagu diray inaad ka soo baxdid wabtaqi fii maa aataaka allahu daara alaakhira sidaa weeyaan wuxuu ilaahay ku siiyey ku raadi aakhirada marka waxa weeyaan islaamka in loo shaqeeya wuxuu u baahan yahay horta inuu murug kugu dhashay ay tahay qalbiga in wax ma aha oo markii indhahaada wax ku dhacaan keli ma aha inaad aad ku jiifatid aad ku soo kacdid hami iyo xil kaa saaran arintaas inay tahay inaad ku soo jeedid ku hurididaa la doonayaa markaasaa afcaashaadii aqwaalkaadii oo dhan kama marnaanayso waxa markii camal kastoo bani aadamka uu sameeya waxaa asaas u ah niyada in wixii horta murug kugu dhaliyaan maanta inaad shaqo heshid haddii ay kugu dhalato habeenkii waanaad ku saaxanay subxina waad ku soo kacaysaa shaqo kastoo aad rabtay inaad fulisid waa inay hami horta kugu dhalisaa marka in islaamka loo shaqeeyaahu baraka bay leedahay waxaay barako ku tahay islaamkaada ku xifdisamay ninka doonaya dadka kale inuu islaaxiyo waxaa ka horeeya asiga inuu saalix yahay shakina male qofka haddii uu ku murgo inuu ummadii kale diinta gaarsiiyo asigana mar hore uu diinta isgaarsiiyey saas weeyaan uu ku camal falay marka waxa weeyaan haddaad naftaada le ku ekeysatid adigii baa hoos usii dhacaysid laakiin ummadda kale inaad saxdid haddaad waqti ka dhigatid ood isku mashquulisid naftaada way saxmaysaa sideeda wax la ogyahay waayo qofka mashaakilka ummadda haysato inaad wax ka xalisid haddaad isku murjisid midaada gaarka ilaahay wuu kuu xalinaya haddaad laakiin ku soo koobtid naftaada dhan mashaakilka adiga taada inaad xalisid weligeed soo aruuri mayso waa la ogyahay marka haddii aad doonaysa in islaamkaada kuu xifdisamo waxaad xooga saartaa dadka kale siday yihiin inaad u gaarsiisid diinteed aad u gaarsiisid ayib waxaa ku xigto islaamka adiga waa horta inuu aada isku dabaqda intaadan islaamka dadka ugu yeerin horta naftaada islaamka ugu yeer ayadoo waqti u dhexeeya aan jirin oo aan la lahayn 5 sano anaa isdiyaarinay kadib baan dad diyaarina ma ah laxdadaas adiga aad ku fikirtay inaad ishagaajisid dadka kalena waad ku fikiraysaa laakiin waxaa la doonayaa wax adiga aadba qabanaynin in dad kale ugu yeertid qaabdaray noqonaysaa haddii aan idhaahdo wardadii habow salaatuleylka waa wanaagsantaha kayta wa ajri waa layga siinaa dadka ina wanaaga faray laakiin ciddii kula joogta hadday ogaatay inaad salaatuleyl aadan dukanaynin waxaan isqabanayna hadalkaada iyo qowlkaada isma qabanaya ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum nabiyullaahi shucayb qowmkiis wuxuu ku yiri wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma statact yacni waxa weeyaan waxaan idinka reebayo aniga ku dhici maayo buuri marka waxaa la rabaa ninka oo islaamka u shaqaynayo inuu asaga horta islaamka isku dabaqo ee islaamka uu ka muuqdo yatamathal bilislaam inuu noqdo markuu qofka islaamka asaga isku dabaqo waxaa shaki lahayn ficilkiisa iyo qowlkiisa iyo dhaqaaqiisa oo dhan baa waxay mathalayaan islaamkii marka intuuna noqonin daaci ila alislaam biaqwaalihi ficilkiisuu dadka diinta ugu yeerayaa waxaad ogtahay nin haddii lagu barta inuu run sheegayo lagu barto inuu mucaamaladiisa ay dadka la dhaqmayo uu wanaagsan tahay dadka asaga way jeclaanayaan
waxaa ka ratibmaya waxa uu aaminsan yahay oo saas ka yeelayna dadka waa wada jeclaanayaan. waxaan horey u soo sheegnay umman badan oo islaamka Afrika iyo Aasiya islaamka waxay ku qaateen dad muslimiin oo tujaar ah oo dhulkaas u doontay inay tijaara ka keensadaan. markay arkeen siday u dhaqmayaan ficilkoodaas cajab geliya islaamka u qaateen. marka qofkii intii uusan hadalkiisa dadka ugu yeerin diinta ficilkiisa inuu ugu yeeraa la doonaya. ficilka ahamu shay weeyaan. marka sidaa daraaddeeda waxaa la rabaa in qofkii inuu islaam loo shaqeeyaahu ka macnaheeda kama dhigno muxaadara meel laga jeediyo, in dacwo keligeed loo baxa keligeed kama dhigno. dacwo ama islaamka loo shaqeeyna waxaas waa ka wen yihiin. intaas jus bay ka tahay in muxaadaro la dhigo, dacwadii loo baxo waa qeyb oo jus min alcamal alislaam ka mid ah, laakiin ayada keligeed ma aha. waxaa la rabaa islaamka markaan aan u shaqaynayno afcaasheenna dhan inuu mathali karo. fiiri hadda mathalan qofkii dukaankiisuu joogaa, hadduu dadka run uga gato runna uga soo gato islaamkii waxa weeyaan waa u shaqeey. haddii wax la weydiiyo run ou ka sheego waa sidaas oo kale. ninkii daawada gaday, ninkii dhakhtarka ah hadduu sameeyo, hooyadii haddii ilmaheeda si ku tarbiyeyso, haddii hooyadii jiiraankeedii diintii ay gaarsiiso, haddii ninkii ardayga ahay ninkii iskuulka la fadhiyo ou gaarsiiyo, haddii ninkii muwadafka ahay ninka la shaqaynaya xafiiskiis joogo diinta u gaarsiiyo, wixii marka laysku aruuriyo wax badan bay noqonayaan. adiga ha xaqirin camalka yar ood qabanaysid. nin kastaba fii mowqicihi meesha uu joogo inuu islaamka ugu adeego yaa la doonaya. wanaagaad aad maanta haysatid inaad jeclaatid ummadoo dhan inay kula haysato, taasaa la doonaya. ayib, marka sidaa daraaddeed baa waxa weeyaan in qofkii islaamkii ou qaataahu waa ashraf wadiifa, wax loo shaqeeya idaa u wanaagsan. ilaahay wuxuu yiri waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin. yaa ka wanaagsan nin qowlkiisa ilaahay diinta ugu yeeray wax ka wanaagsan oo la qaban kara miyaa jiro? kuna sii daray wacamila saalixan, asiga naftiisana waa hagaagsan yahay, dadkiina wuu ugu yeeray. waxaa dheeraadee waqaala inanii min almuslimiin, waxaan saas u samaynaa muslimiintan ka mid ahayo muslimiinta lagu yaqaanaa inayna is wanaajiyaan, dadkana wanaagga ay ugu yeeraan. sidaas awgeed baan aniga waxaan xibin ka ahay ummadaas nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam. marka islaamka in loo shaqeeya waa tijaarada khasaaro marnaba aan lahayn, waxa weye guul joogto ah. nabiga calayhi salaatu wasalaam fi lxadiidi saxiix wuxuu iri lian yahdiya bika allahu rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam. inuu ilaahay hal nin kugu hanuuniyaa ka wanaag badan inaad geel kan loogu jecel yahay oo gadgaduudan ama cascas siday dadka u yaqaanaan inaad la baxdid ama aad lahaatid. waxaa ka fiican hal ninoo sabab ugu noqoto islaamka inuu soo galo. liannahu intuu islaamka ku dhex jiro wuxuu sameeyo xasanaad oo kaamil ana waa lagu qora, asna wax laga nusqaamin maayo. man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama. way soconaysaa arrintaas iyada. bal fii saxiixi muslim waxaa ku sugan man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacilihi. ninkii nin kale khayr tusiyo ou ninkaa kale ood khayrka tusiso khayrkii ou sameeyo, intuu ninkaas ajirka u socdo khayrkaas uu samaynayo mid lamid ah adigana kuu socoto. tijaarataasaa la yidhaahdaa, khasaaraba aan aqooninba. marka cid kastoo anaga naga mid ah mumkin inuu ka qeyb galo dacwadii islaamka ahayd. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu iri balliquu canii walow aaya. diintaas aan idiin keenay oo ballaaran wax iga gaarsiiya walow aayad keligeedba ha noqote. maanta haddii aan wasiyadaas nebiga ku dhaqanno oo qof kastoo muslim ah ou nebiga wax un ka gaarsiiya hal aayad, maanta wax gaale wadanka caalamka lagumaba arki lahaynba. liannahu waxa weeyaan muslimiinta 1,500,000,000 milyan waay, yacni 1,000,000,500,000 waay. haddii nin kastaba xil iska saara dacwada nebiga inuu siday tahay u qaato ummadda diinta ugu yeero, gaaladaas oo dhan diinta waa soo wadageli lahayn.
laakiin waxa weeyaan wax boqolkaas milyaar wax ka samaynaya yaa wax faratiris ah. tasawaru kutub siyar waxay sheegtay ninka Sacad ibn Mucaad la yiraahdo ansaariga oo khasrajiga ah markuu Muscab ibn Umayr ninkii nabiga uu diray daaci Madiina u diray intuu la kulmo islaamkii qaatay. islaamkii markuu qaatay qoladii madaxda u ahaay iyo isugu yeeray wuxuu yiri ragiina iyo dumarkiina inaan la hadlo waa iga xaraam horta ilaad islaamtaan maahine kulligood islaamkay wada qaateen. fiiri ninka shakhsiyadiisa arag karaamadu lahaa iyo sharaftu lahaa wuxuu u adeegsaday islaamka inuu dadku soo geliyo. waa la ogyahay ansaarta islaamka say u qaateen isla markiiba waxa waa intashar al-islaam fi rubuuc al-Madina liannahu ikhlaas iyo juhdi iyo jacayl baa jiray. nabiga calayhi salaatu wasalaam waa u duceey ninkii diinta u shaqaynayo oo dacwada u galo islaamka u soo yeero nadara allahu imra'an samica mina shay'an faballagahu kama samicahu faruba mubalagin aw caamin saamicin aw caamin saamicin. nabigu wuxuu yiri ilaahay wejigiisa allah ha iftiiniyo nin kastoo anaga wax naga maqlay oo siduu u maqlayna dadkii gaarsiiyo waxaa dhici karta ninkii wax la gaarsiiyo inuu ka fiicnaado ninkii wax soo gaarsiiyey. marka fiiri dacwada nabiga waxa weeye munaafasa in lagu galaa la doonaya. walidaalika ambiyada maalinkii la soo saaray ilaa ay ka dhintaan wax kaloo howl ay hayeen ma jirto. wayaa qowmi laa as'alukum calayhi ajran in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin. war wanaaga aniga qaata waxaan idinka rabana ma jirto. habeen iyo maalin yay dhihi jireen. nabiyullaahi nuux waad ogtihiin innii dacawtu qowmii leylan wa nahaaran. habeen iyo maalin xataa ma dhihin aniga ilaah hadduu dacwo ii diray maanta waxaa 2 saacaan soo wareegaya ma dhihin. habeen iyo maalin yacni dacwadii ama alcamal lilislaam juzu min xayaatihi bay noqotay. walidaalika undur nin kastaba wuxuu qaban karaa wixii adiga aad kari kartid. qofka dumarka iyo ninka caalimka isku shaqo ma aha. ninba xil baa aadan. wiilka yarka iyo ninka weyn isku xil ma aha. ninba qayb baa aadan. ninka oo macrifo leh oo dadkoo dhan ay ka dambeeyaan hadalkiisa maqlayaan iyo ninka aan la aqoonin isku maqaam ma ah. nin kastaba fii maqaamihi inuu islaamka uga adeegaa la doonaa. nabiyullaahi yuusuf nin yar oo duur laga soo helay oo la kala iibsaday sidii addoonkii ee guri khaadim ka ahay yaa xabsi loogu sii daray. asoo xabsiga ku jiray oo u bilaabay dacwadiisa inuu dadkii horey u sii wato oo wuxuu yiri yaa saaxibay sijni arbaabu mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxid alqahaar. dadkii la jooga wuxuu leeyahay bii'ada aad ka timideen ee ladinka soo xiray oon hadda sijniga iskula jirno wuxuu yiri waxa weeyaan dad oo aaliha iskhilaafsan qolo kastaba waxa weeyaan wax bay samaynayaan. markii la yiraahdo waxaan maxay tahay ilaahayga iyo amray sanamkii samaysteen marka waa mukhtalifuuna fi ma baynahum bisababi eesh asnaamtay kala raacsanaayeen baa kala duwan. ma kuwaas baa inta ayaa khayre am illaahu alwaaxid alqahaar buur. ilaahayga waaxidka oo ilaah xaq oo kala uusan jirin qahaarka oo wuxuu rabana kugu fulinayo allahaas in la caabudo ma haboon. mase waxaa yar oo adinka dhexdiina idinkala gey fiiri dacwadii buu ka gudanayaa. mas'alada ma fiirin anigoo meel yar oo dadkayga layga soo wato khaadim oo laysi xabsiya nafsi ma dhihin meel ka weyn buu ku fikirayaa. walidaalika waxaa haboon inay noqoto dacwadii haajis qofkii uu la nool yahay ilaa raqmaqa ugu dambeeya naftiisa ay ka baxdo. uswatan bianbiyaai illaahi tabaaraka wa tacaala. nabiyullaahi ibraahim iyo yacquub unduruu ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني الأنبياء ذاس أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه markii nabiyullaahi yuusuf ay tii alla nabiyullaahi yacquub tii alla u timid ee waqtiga sakaraat almowt la joogo yuu dardaaran uu bilaabay. ma dhihin xooleygi saasaa loo qaybsaday intaa la qaado waxaan ma dhihin laakiin wuxuu ri war diintan idinku ogahay diinta soo haysta. fiiri nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii malaka mowdku soo xaadiro fii waqti alixtidaar uu joogay waxa ugu dambeeya laga maqlay waxaa ka mid ah allah allah asalaah wamaa malakat aymaanukum.
war ilaahay uga cabsada salaadiina iyo addoomanka aad leedihiin si fiican ula dhaqma salaadiina si fiican u dukadaba nabiga calayh salaatu wasalaam min ukhrayaati kalaamihi waxay ugu dambeeyey wuxuu ku hadlay qeyb ka ahayd. marka waa in anaga hal xaqiiqa aan ogaanaa. xaqiiqadaas waxaa weeyaan horta diintan ilaahay baa soo dejiyey asaana raalli ka ah. bal u fiirso ilaahay diintaa soo dejiye alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diinan. ilaahay baa diintan raalli ka ah. wuxuu ilaahay raalli ka yahayna waa meel marayaan. bal u fiirso marka ha meel maraane dad baa sabab ilaahay ugu dhigaa inay diintaas meel marto oo sababtooda iyo guulku xaqiijina ummadoo dhanna ay ku hogaaminayaan. dadna waxa weeyaan xilkas ma ahana waa laga wareejinaya. marka sidaa daraaddi ilahi wuxuu uri walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarihuhaa cibaadiya asaalixuun. wax hore loo sii qoray waa kitaabkii nebiyullaahi daawuud lagu soo dejiye zabuurka ahay. ilaahay wuxuu ku qoray ana alarda yarihuhaa cibaadiya asaalixuun. waxaa u dambayn doona oo guusha ay raaci doontaa fi nihaaya dadka oo saalixiinta ah qiyaamada intay dhicin horteeda xilka aygaa la wareegay. marka annaga laba mid un baana hor taallo inaan noqonno dad sidaas uu adeegayo diinta ilaahay ou ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu sharfo inaan noqonno kuwii diinta meel mariyey iyo in la yidhaahdo waxa kan waxay yihiin male diinu ma adeegi karaanas ha laga leexiya meesha. marka taas ha noogu daran lianna allaha tacaala yaquulu wain tatawallow yastabdil qowman gayrakum huma laa yakunuu amhaalakum. haddii aad jeesataan oo wixii ladinka rabay aad fuli waysaan oo diintan ilaahay aad u adeegi waysaan ilaahay wax lama aha inuu idiin bedelo qowm kalena ou la yimaado qoomkaasoon adinkoo kale mid noqonaynin ee sidii ilaahay u rabana wax u fulinaya. marka annagay maslaxad noo tahay inaan shaqaale ilaahay noqonno oon diintiisana aan shaqaalo u noqonno kaalintii noogula talagalayna aan ka soo baxno annagabaa ku badbaadayno khayr badanna waan ku helaynaa. haddii aan diidnane waa taa oo waxa weeyaan jidkina waa nagala leexinayaa ciqaab iyo balaayo baa nagu dhacayso. sharaf lena waa la keenayaa hawsha sidii tahay inu u qabsanay. marka waa inaan ku fikirnaa diintan ayada in loo shaqeeyaaho ma aha wax taraf aho qofkii rabo wuxuu rabo iska leeyahay ma aha. waa waajib kula dhasho kulana dhimanaya weeyaan. marka waa inaan xisaabteena ku darsannaa aniga maanta maxaan keyrkay gudbiyey. hadhow waxaa laga yaabaa in wanaag lagaa dhaxlo oodan warka haynin weligeedna ajirkeeda uu kuu socdo. qiyaamo markaad tagtay waxaad arkay malaayiin qof yaad khayrkii ka tagtay kusoo camal falay yaad la yaabaysaa waxaasoo khayr aho gacantaada soo galay. marka fursadaas in layska dayaca ma ah. wallahu aclam.